waxay noqonayaan isla hadalna qasab ina macnaha eye to eye maaragtay isla hadalna oo shaqada badankeeda ka ahaan waa iska sheekaysanaa newska ka hadalnaa hadii kale sportska ka hadalnaa sheeko wax naga dhaxaysa saaxiibnimo taa naga dhaxaysa ani aabe hadii saaxiibnimo naga dhaxaysa connection fiican ah jirto aad iyo aad so connection kaas hadii jirto badankeeda with parents iyo ilmihi applicationki iyo khayraad waxa sayaraan waxa ii sheegtaa Aish connection kaas muxuu noqon karaa for example ma dugsi aada ma chores waxyaabo oo kugu talagalay ina sameeysaa Aish waa maanta intaas sameeysaa ama isha connection kaas waxay noqon kartaa sida aniga hadda groupka wadna BNI-ga waxay noqon kartaa ilmaha from 6th grade to 8th grade iska dheh oo 12 10 iska jiraan iska dheh kaas ina hoos ku soo bilaado markasta ilmihi kor mar dhib ay noqonayaan ina la hadashay ilmaha ninka hadda oo isla hadli jirin so ilmihi from 10 to 12 iska dheh hadhoon inay imaadaan event ka aniga wadna for the kids from 6th to 8th grade inay imaadaan aaboodii hooda imaadaan meel pizza iska cunaan oo TV isla fisadaan hadhoon markay waxaas la yeelo hal saac amal ah oo hadhoon la fadhiisto aniga la hadalno oo dhahno okay hadda schoolkiina waxaan inaa yeeshin waaye iyo waxaan daayishin award kana isiinayna so wiilkii gabadha hope ay lahaanayaan inay wax okay waxaan grade-kayga si fiican u yeelay waxa ka soo helaa waxa igu soo baxayso waa gartay waa ka gudbaynaa aad u mahadsan tahay taas waxay ahayd fahamka waalidka iyo parenting waxaan ka soo hadalnay sidoo kale waxaan ka hadalnay sharciga lowga fahamka lowga in waalidka iyo mataqaanaa wadankan Mareykanka aynu ku noolnahay inay fahmaan understanding the American culture Somali parents fahamkooda si wax u fahmi lahaayeen hadda waxaan ka hadlaynaa dhalinyarada waataan mataqaanaa soo waxyaabo badan ka soo hadalnay inagoo markaa waqtigu nagu yar yahay waxaan jeclaan lahayn nasiib baahino oo mataqaanaa waqti badan aan sii helno insha Allah jeclaan lahayn su'aalo in waalidka xataa na weydiiyaan oo telefoonka aan furno laakiin waqtiga ayaa noo masaamaxeen waxaan ka hadlaynaa waxyaabo murugale oo dadkeena Soomaalida ku batay oo wadankan deganahay iyo adduunkiba dadka Soomaalida lagu nacay oo ah xagga diinta xaggeeda ama magaca loo yeelo dadka xun waxyaabaha ay sameeyaan oo haddii afka qalaad ama magaca Ingiriisiga ah oo terrorist la yiraahdo waxyaabaha terrorist ay sameeyaan for example waxa jirtay in maalmahan dadka Soomaalida lagu daba jiray dhalinyarada Soomaalida dhibaatooyin badan ay sameeyeen xagga ama haday noqoto ninkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo inta wadankan ka tago oo isqarxiyo la yiri ayaa jira dhalinyaro badan oo baxay oo wadankii ka baxay ayaa jira oo ficin ah oo da'diina ah oo sida u qurux badan tiin u qurux badan oo aqli u leh oo mataqaana aqoon u leh oo mataqaana everything they know everything they're very good guys those macnaha dhalinyarada Soomaalida the young Somali kids oo mataqaana high school ka qalin jibiyay waxa jirta inay baxeen oo wadankii tageen oo qolo saas oo kala terrorist ku darsameen inagoo we don't want to get involved or lose thing political questions laakiin waxa muhiimadda waxaan rabnaa inaan saarno ninka la yiraahdo Aish Mucaad Suufi Maxamed dadka Soomaalida idin dhageysanaya mataqaana iyo waalidiinta kale iyo dadka kale Soomaalida ayan xataa I will start and you can speak if you want I will start with Sufi Buzuri. Sorry, is that your right name, right? Sufi. Sufi, tell us a little bit about how do you define terrorism? And we see that in young Somali kids these days, in Minneapolis, we're hearing that bad news from them. And what do you say about those things, bad words coming up from the media, what would you say? I would say, we have to sit down as parents. We have to sit down with the youth. English if you want. If you don't talk to the kids, then there's going to be no communication, and they're going to go off running, and they're going to keep it inside themselves. Like if you have something stressing in your mind, it's going to stress you out, and you're going to keep it on yourself, and then you're going to go end up hanging out with your friends, doing something you don't want to do. And when you do, it's going to be too late. It's too late. It's too late. You can't change it. You win wrong path. Yeah. So like, tell us like we're not new to, as Islam, like Somali people. We're not new to the Islam. We were years and years ago we were Islam or Muslim. So
tell us like a little bit about how we define like other people, the people who are living in this country, in the United States. How do we connect this, that these people are not bad people, you know, like like we're not bad people, you know, but like the young kids, the kids, you know, ciyaalka yararka oo macnaha maskaxda laga xaday, what would you say to them? And I'll tell them personally, go find somebody you could talk to. The official, how does she, you'll be okay. Because unka like معاذ داي مرتي عاني. So if you're gonna come to the United States or معاذ لهان or you're visiting عمد رفشة دي قش بس وعلونها. Okay. You know? Yeah. So I would tell the young kids to stay out of trouble, watch who you hang out with, because mainly you know, the people you hang with dadka macnaha la joogtid macnaha xun haday fiican adna waa fiican tahay they good. Okay, what would you add to that conversation? with the su'aasha weydiisay the Muslim hadda dhahdid marka qofka madaxa laga masaxayo or yeah, like waxaa fiirisaa aash dadkeena Soomaalida macnaha aad u dhibtoonahay oo dadkii Soomaalida ah siiba dhalinyaradiini dadkiini oo loo baahnaa adinka dadkiinan yaryar way waxa focuska la saaray macnaha oo la yiri waxay noqdeen dad tourist ah oo mataqaana wadankii way ka tagaan macnaha wadankii aadaan ama xataa intay ku xun yihiin oo way isdilaan oo bisto hubay haystaan marka dadkaas macnaha see maaragtay sida hadda imagekiina u fiican yahay brand new image oo maaragtay BNI ay sameynaysiin wax fiican waaye oo dadkii maaragtay soo jiidanaya marka see adinka marka macnaha dadkaas connectionkaas ku wada sameyn kartaan connectionkaas waxa ugu yeeli karnaa before sida uga hadalna events laakiin midda hadda ka hadlayna waa tourists this is about tourists waxa waaye okay adii marka oo waxa la aadaa wiilkii oo liito waxa la wiilkan surwaalkii ridaa ma fiicno waa la hadlaynaa waa geenina waxaan yeela dheena waxa dheena diintaada si fiican muu dhisno diintaada inuu ku dhisnaa bilaaga adaad diintaada dhisneen oo salaada aadin karin oo masaajidka aadi karin markaas aad lagu dhigi karaa adin hadda knowledge ka haysan diintaada waxa lagu sheegay inaad believe garaysid waa gartay so hadda knowledge diinta ina ka haysatid oo xoogaad ku haysatid diintaada ka dhisan waxa qaladka iyo wax sax waa ogaanayna badankeena anikana targetka waxaan la saaraa kasuma aadna masaajidka darunta isku sheegaa been la qarneen anika dhalinyaradeena iiskeena oo America joogan masaajid ma aadno hadda nusko xataa ma tugtaan been ma sheegayna so that's the reason ay noo soo saaraan culayska because hadda ana hadii dhalinyarada agteen waxaas problemkaas iskaga dheereysid naftaada u roon diintaada u roon masaajidkaada iska aado quraankaada iska akhriso adigoo dhib kuga aan hal saacad iska gelisid oo akhris quraan ay masaajidkaada salaadaada iska soo tagtid salaadaada waa maqashin Soomaha dhalinyaradaas Minneapolis qaarkood Mareykanka degan macnaha bixin saas oo kale waa maqashin Soomaha marka maxaa ka dhihi lahayd Maxamed maxaa ku darsan lahayd okay dhalinyarada Soomaaliinta ayagoo dhan waxa uu sheegi lahaa hadda dhalinyarada kulligeen muslimiin aan ahnay ya qof ma ku dhigi kartaa adiga muslim ma tihi that's one thing daacada tin dhalinyarada Soomaaliinta baxayaan isqarxinayaan qof aan madaxooda wax ku dadalay qof oo ka weyn oo wax ka yaqaan dadka oo madaxooda wax ku garab because waa cunug oo hadda soo koraya he doesn't know what he's doing qofkaas waxa ku dhacaya orbax muslimiinta soo caawi isqarxi jannada galaysa you know macnaha nin dhalinyaro oo da'yar oo mataqaana sidin da'diino kala ah oo dad kala inta imaada oo niyada ka bedelaay janna galaysa ee soo bax marka waa arin macnaha wax xun Soomaha wax xun weeyaan because hadda the person ka xaynaysid for example age-kiisu waa yar yahay gartay dibtaaseeto dhan oo asaaraysi family-kiisa oo ka walaay waxaaseeto dhan in kaarto dhan qofkaas ay tigaaraysa the other person dadku soo qarxinaya his own people weeyaan walaalkiisa oo kale weeyaan you know dadkiisa soo qarxinaya marka maxaa kaloo ku sii dari lahayd maaragtay anagoo sii wadanayna barnaamijkeena violence-ga waxaan ka soo hadalnay barnaamijkeena qaabka Soomaalida waxaan ka hadalnay waalidka waxaan ka hadalnay hadda isqarxintii dhibka dadka Soomaalida waxyaabaha terrorist ah marka bal hadda violence-ga condemning violence in macnaha violence-ga aad wax xun yahay
maalmahanna waxaa jirtay dhalinyarada Soomaalida in maaragtay dadkii Soomaalida ay ku soo laabteen taas maxaa ka dhihi lahayd Maxamed dadka Soomaalida oo da'diina oo dhalinyarada da'diina oo kala ah ilaa waa isku da'atihiin macnaha dhalinyarada macnaha maaragtay violence iyo waxyaabahaas ku jira maxaa u soo jeedin lahayd adinkoo hadda dad wanaagsan macnaha macallimiin fiican leh waxbarashada si fiican ugu dadaalay hay'ad fiican oo qurux badan aad wadaan oo dadkii idinku daysanayaan maxaad dhihi lahayd Maxamed what would you suggest waalid fiican marka haysatid oo ku sheegaya jidka mustaqiimka ku soconaysid waalid fiican oo ku sheegaya oo adigoo dhan ku push gareynaya waxaas ta samee oo na ka hareenin haddaa haysatid you will never do something oo haddaa waalid la'aan tahay jidkaas inta iska socotid Mareykanka Lucas diray inta waxbarasho u imaatid ala socotid dad xun assurankaas inta waxaas inta dhaxgalshid is not their fault because you know first of all haddaa Mareykanka imaanaysid waalid waa inuu ku haysta xagga neeto you know halka neeto waa jid like waxa weeyaan wadan oo gaaleed wadankan inta daa'imaatid qofku support gareynaynin who you have to support you familkaaga Afrika jiraan wixii ka baan lacag inta u dirtid you know inta shaqeysata adigii wax ka sugayaan adigii inaad wax noqotaad rabtaa in adigina waxa rabtaa inta wax noqotay laakiin dhalinyaradii oo cidna haysan xaggan imaade oo aqoon waxna confused there of course they will do such a thing going out rapping stores you has to shooting people waxa rabinta ku dhaw you know you just come to the person oo adigo naftaaga yaa hadaa u rabtid wax fiican qof oo naftaaga u sheegay you know waxaan taxuyin waxaaseeto oo fiican ka daba tag yaa qofkaas inta kale u tag u sheegay mushkiladaada you know problemskaaga u sheego gartay maad maxaa ku daraysaa adigana balance waxaan ka hadlaynaa balance-ga in balance-ga uu xun yahay balance means in maaragtay rabshada iyo dhibaatada dadka Soomaalida ay aad u badan yihiin macnaha marka maxaa dhalinyarada Soomaalida iyo waalidiinta u soo jeedin lahayd أنا أوصل جدين لهاي بدنا المها أو دتك أو أي استوكنا أما ميل صورة بقولنا بدنا المها they don't have a stable home no قولي أو هوي أبو جوجان أو أنت لقاسينا أو هوي ذا أبوه أجين لو أتانا مرسى عمشة دوكتي إجريز كاجي سكول هذا سكول أسام هذا شقنا صدقني قنقات أو شقنا لكن أولو أجيه ماشى جوكتي لو أتانا أفر ساعة روح ساعة أقلي سكول ما نسى إنه روح سو ما صح هذا نو وما صار بقريه. أوكي معناها عن كذا حاجة واحد تري إن لقى هذا معناها ماشي جوجا أما والد لقى هذا ماشي عيال كودا أي آذان مركا ما لها يعني هذا ضدك عن أي آذان محاكم إذا مركا ما نوشي كرتا معك. مالك والله من كل شيء كرتا اسمعها because it always depends like سوف وده ضدك على هنجا بقريه سينه ضدك على جوك تدوي. هذا أنا على جوج ضد all drug dealers لكن أنا ما أقول drug dealers واي ماله صح هذا ما تو أركاسنه برين ولا رقمه ساس لو اسمه marka waxa nooga sheekaysaa wax yar sida Aish aan weydiiyay adiga iyo waalidka macnaha wanaag idinka dhex dhacay si dadka ay maaragtay hooyooyinka maanta ay caawa idin fiirsanaya iyo maanta barnaamijkeenan fiirsanaya dhalinyaradan ma sha Allah waxyaabahan cusub sameeyay rabaan dadka Soomaalida inay ku daysadaan marka waxaan wax yar nooga hadal macaad sida Aish uga xiriir dhex maray adiga iyo waalidka أنا أبيه الحمد لله وشيخ ما شاء الله ما شاء الله from أبوه الشيخ سما أبو الشيخ محمد رشيد والله هنا أو هني from ما كان مكأسو قرني و 2004 جميع هاد هل مالين ويدافع مال أنا مساجد جوجين هذا بنون صوت عيارة أما ولاك يصدره أما ولاش يصدر روح بو يصدره ويجي معنا إنه هذا العالم مساجد ويجوا هنا ما نتاس حبين كان قري إمادة حاجة جوكتها وريها سمرك أنا هذا بنون عيارة ساعات فيرنا أو مغرب على جارنا هذا قولي أهل وخلاء سيجاسنا. مركا وقت جا جنا مركا معاد وترسينها مساجد كي مركا عادي سي قولي إماتين كيسي سكولك مركا أنت أول حيس هدي له جوايو كور